tartankani oo bishii barakeysaneed ee Ramadaan ka socday garoonka Iicug ee magaalada Burco ayaa waxa soo qaban qaabisay dawladda hoose ee degmada Burco waxaana tartankani loogu magac daray Allah u naxariistay samataliskii weynaa ee Soomaaliland oday Xaaji Cabdikariin Xaaji Cabdi Waraabe oo ahaa oday miisaan culus ku leh Soomaaliland waxaana tartankani ciyaarta finalka ah isku arkay isla markaana wada dheelay ciyaar aad u adag oo xiiso badan laba kooxood oo ku kala ciyaarayay magaca xildhibaan Cabdiqani Cabdilaahi Axmed oo ka mid ah xildhibaanada golaha deegaanka Burco iyo koox kale oo ku ciyaaraysay magaca Sariflaha Soomaaliland degmada Burco tartanka Ramadaanta waxay furtay oo ay qabatay tartankii seerasida oo ka socday stadiumka weyn ee Alamsi Stadium kana qayb ka tahay maadaama xildhibaan Cabdiqani Cabdilaahi Cabdi uu tartankan furay oo isagu maal galiyay runtii wuxuu ahaa tartan aad iyo aad u qiimo badan oo loogu magac daray hoygii nabadda Ilaahay ha u naxariisto jannada ka waraabiye Xaaji Cabdi Waraabe Ilaahay ha u naxariisto marka anagu waxaan aad iyo aad u dhiirigelinayaa ka dawladda hoosaan tartamada kasta oo kubadda cagta lagu dhiirigelinayo waayo waxay sababaysaa horumar buu keenayaa isdhexgal bulsho keenayaa ururkii qabyaaladda meesha ka saaraya tartankaasi waxaan weyday bishii Ramadaan oo dhabar weyday tartankaasi si wacan buu nagu dhamaaday tartanka waxa maalgeliyay xildhibaan kamid ah xildhibaanada golaha deegaanka Burco xildhibaan Cabdiqani Cabdilaahi Axmed oo ah xildhibaan marka hore isagoo isboorti hayo laakiin moodimo kan isboorti yiri la weeyo mar soo xusanayo oo ugu mahadcelina horta inuu dhalinyartii gobolka Togdheer uu xasuusto oo tartan u furo oo salaamaya maayirka iyo xildhibaanada golaha deegaanka ee Burco iyo dhammaan mas'uuliyiintii isduuyaasha ka joogay iyo labada kooxood ee ciyaaray waan ugu mahadnaqaynaa xildhibaan Cabdiqani koobka uu dhalinyarada u qabtay oo ugu magac daray Xaaji Cabdikariin waxaan leenahay shaqo wanaagsan bal qabatay oo dhalinyarada u muhiimaho xilliyada noocaas oo kala ah waxyaabaha hadee dhalinyarada motivate gareeyay isdhexgalkooda saameeyay way kamid tahay dhammaan ka soo qaybgalayaasha tartankan loogu magac daray Allah u naxariistay tiirkii ugu weynaa ee nabadda ee Soomaali lahayd Xaaji Cabdikariin Xuseen Xaaji Cabdi Waraabe Ilaahay ha u naxariisto waxaan halkan uga mahadcelinayaa xildhibaan Cabdiqani Cabdilaahi Cabdi oo tartankan isagu hindisay in uu maalgeliyo oo uu abaabulo iyo dhalinyartii kale tartanka quruxda leh caaw soo dhamaaday ka soo shaqeysay ee dadaalka muujisay hambaliyo iyo bogaadin aan u hambaliyeyno kooxda dhalinyarada ee koobka qaaday sidoo kalena aan uga mahadnaqno xildhibaanka uu maalgeliyay koobka si dhalinyaradu ay isu dhex gasho runtii waxaan leenahay aad iyo aad baad u mahadsantihiin Xaaji Cabdiqani Xaaji Cabdi Waraabe wuxuu ahaa tiir weyn oo qaranka Soomaaliland ka mid ah wuxuuna badbaadiyaha Soomaaliland markay ciirto waa lagu carri jiray wax loo sheego Xaaji Cabdi maanta tali mar haddii la xusay maanta oo haddii laba guurooyo ee xildhibaanku gartay in lagu maamuuso koobka runtii aad iyo aad baan uga mahadnaqaynaa kulli aniga runtii caawa farxad bay tahay oo markaan arko kubadda iyo maxaan ku yiraahdaa sports waxyaabaha ku soo ababay ku soo barbaaray bay ahaydo haddii laba ku rooyahay ciyaal sports baan ahaado si wacan baa ragii waaweynay kubadda la ciyaari jiray ay garanayaano anigu waa kubaddu waa hiilka barbaarta soo koraysa Cabdi Waraabe oday weyn oo qaaliya buu ahaa oday Soomaaliland buu ahaa oday maxaan ku dhahay muxtaram buu ahaa oday taariikh badan runtii anigu waan ka haya buu ahaa oday samatalis buu ahaa oday boqol iyo dheeraad jiray buu ahaa oday ka weyn in inta lagu xuso weeyaan haddii Cabdiqani Cabdilaahi uu bixiyay aad iyo aad buu magaca u mahadsan yahay kulamo badan iyo taalo in loo dhisana uu mudan yahay waxaan dhiirigelinayaa gudoomiyaha degmada ha noqoto ama dawladda hoose ha noqoto ama ka xildhibaan ahaan ha noqotee sportska dhalinyarada degmada Burco in la dhiirigeliyo aniga runtii aad iyo aad bay farxad igu tahay inaan sportska ka soo qayb galo mar dhawood baa la soo sheegay halkan aan ibi aad iyo aad baan ugu farxay sida ciyaartu u socotay ciid mubaarak baan nahay ummadda reer Soomaaliland iyo ummadda islaamka meel joogan intaas kadib waxaan ka salaamayaa dhammaan madaxda degmada Burco gobolka oo gudoomiyahaygi golaha deegaanka degmada uu caawa garabkayga joogo xildhibaan Aadan Xuseen salaan kadib horta
koobkan aan furay qorshihiisii iyo nidaamkiisii wuxuu ahaa mid aan ugu talagalay halkii xaaji cabdikariin xaaji xuseen cabdiwaraabe markii uu noolaa Somaliland marxaladihii ay mareysay 34 sano ama 33 hore uu noolaa haddii ay laba beelood oo gobol wada dega isdilaan haddii ay laba beelood oo meel ka soo jeeda ay isdilaan xaaladaas wuxuu ka ahaan jiray lambar 1 markasta iyo goob kasta uu ku sugnaan jirto amniga nabadda ay ku sugan tahay maantana xusuudeeda waxa mudan gobolka Laascaanood sababta horta aan ku keenay ee golihii guurtidu aanay uga hadal ee aanay ciidamo ka hadal waxa ahayd xaaladda Laascaanood ka taagan inaan magaca marxuumka xaaji cabdikariin aan ku xusno waxaan joognaa garoonka la yiraahdo Yucug oo ay inama dhalinyaro ay maalgeliyeen isla markaana goob wacan oo istiraatiiji ku yaala garoomada ugu fiican ee magaalada Burco isla markaana xilliyada Rabadaanta aad loogu raaxaysanayay ciyaarta iyo wareegyada kala duwan ee dhalinyarada magaalada Burco ay ka sameeyeen waxaan u mahad celinaynaa dhalinyarada maalgelinta quruxda badan sameeyay marka labaad ee kalena waxaan u mahad celinayaa Cabdiqani Cabdullaahi Axmed oo kamid ah mudanayaasha golaha deegaanka degmada Burco kaasoo ku maamusay wareegyadii badnaa ee ka socday garoonkan mid kamid ah inuu isaguna furo isla markaana uu magac daro astaanta nabadda Somaliland waxa Cabdikariim taasi waxa ay sheegaysaa in Burco fariin nabadeed u dirayso dhammaan Soomaalida inay Somaliland u dirayso inay Sool u dirayso inay Burco u dirayso inay cid kasta oo colaad ku foogan ay u dirayso fariin nabadeed isla markaana ay xusayso haliga nabadda ee maalinta ay daran tahay cid kasta oo qaldan runta u sheegi jiray cid kasta oo saxan waxaan sunnah ka bilaabi jiray ilaahay waxaan u baryaynaa marka labaad kale Rabadaanta lagu xusay iyo habeenka ciida inuu wanaagii badnaa uu sameeyay ugu dambi dhaafo isla markaana janooyinkiisa ku casuumo wax badan oo wanaagsan oo dalka uu geystay marka labaad kale labadan kooxood ee finalka isugu yimaadaan baleenaya mid xildhibaankii wareegga furay bay ku magac darnayd midka labaad ee kalena Cawil Cabdilaahi oo kamid ahaa haldoorkii magaalada Burco ilaahay u naxariisto maalmo dhaweyd dhintay asagana oo kooxdiisa ku guuleystay magaciisana intii halkan joogtay iyo inta kale ee dhageysanaysa waxaan ku dhiirigelinayaa inay u duceeyaan ilaahay jannadii firdawsa inuu ka biraabiyo